Hay'adda ilaalinta dhaqaalaha Norway ayaa ka digaysa 4 bangi oo ay sheegeen inaysan ka diiwaan gashanayn una diiwaan gashanayn hay'addan iyo sidoo kale dalka Norway kuwa oo adeegyo kala duwan oo bangi ka bixinayo. Waxa ayna sheegtay hay'adda in ay bangiyada afarta ay kala yihiin Sprut Bank, Instant Bank, Banki Suret iyo sidoo kale Banki aan Watford Bank. Waxa ayna afartuba ku sheegeen in ay yihiin kuwa aan u diiwaan gashanayn hay'adda dalkana ka diiwaan gashanayn haddana bixinayo adeegyada kala duwan ee bangiyada looga baahan yahay sida amaahaha, sidoo kale maalgelinta iyo sidoo kale dhaqaale bixinta. Waxa ayna sheegeen in afartan bangi ee adeegyada bixinaya aysan wax diiwaan ku lahayn dalka Norway, ha yeeshee mareegtooda ay ku qoreen in ay ka diiwaan gashan yihiin gudaha dalka Norway. Waxa ayna sheegeen in ay macaamiisha ugu adeegayaan sida bangiyada kale oo ay bixinayaan baahiyaha kala duwan ee ay dadweynaha u qabaan bangiyada. Waxa ayna sheegeen in bangiyada sida caadiga ah ka diiwaan gashan Norway ay tahay in ay hay'addan iska diiwaan geliyaan, iyagoo sheegay in afartan bangi aysan ka diiwaan gashanayn hay'addan. Waxa ayna sidoo kale sheegeen macluumaadka ku qoran mareegtadooda internetka in aysan ka diiwaan gashanayn dalka, sidoo kale lambarada ku qoranna aysan ahayn kuwa shaqeynaya, iyagoo sidoo kale sheegay in adereeska ama ciwaanka ugu qoran ee ay kaga diiwaan gashan yihiin Norway uusan ahayn aderees sax ah oo ka diiwaan gashan khariirada Norway oo uusan wax sal iyo raad ah ku lahayn guud ahaan kayga Norway. Waxa ayna dadweynaha uga digeen in ay ka digtoonaadaan afartan bangi oo ay ka qaataan amaah ama ay la yeeshaan macaamiil oo ay macluumaadkooda shakhsiga ah siiyaan. Waxayna sheegeen in bangiyadan waxa ay dhacaan iyo dhibaatada ay geystaan aysan hay'addan mas'uul ka noqon karin, dadweynahana ay uga digayso la macaamilka afartan bangi oo digniin xoogan ay ka bixinayaan. Waxaa inta badan dadweynaha qaybahooda kala duwan lagu soo jeedaa amaah aad u fudud iyo sidoo kale lacaga uu qofka iska qaadan karo iyadoo laga diiwaan gashanayo macluumaadkiisa muhiimka ah oo aan la ogeyn wax loo isticmaalayo, taa oo ay dadka u nugul yihiin haddiiba ay helayaan lacag amaah ah in ay si degdeg ah ku buuxiyaan foomamka loo soo bandhigo iyagoo aan ka fiirsasho lahayn. Waxayna hay'addan uga digaysaa dadweynaha in bangiyada ay macluumaadkooda shakhsiga la wadaagayaan ay ka digtoonaadaan, taxadir dheeriyana ka sameeyaan, maadaama ay sii badanayaan tuugada internetka kuwa oo dhaca noocyadiisa kala duwan ku sameynaya dadweynaha qaybahooda kala duwan. Halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.